Three, two, one. Gamekan oo lagu cayaarayo waa game sheego qofka hadduu run sheegayo iyo hadduu been sheegayo. Tik aa la siinaya haddaa been sheegtay beenlow aa kusoo baxayso, haddaa run sheegtan run aa kusoo baxayso. Markaasaa su-aala lagu weydiinaa, su-aasha lagu weydiin waxay ka jawaabaysaa. Su-aasha marka la weydiiyo gabadhan waxay tahay weli ninkii hore aad jecleedeen ma jeceshahay? Ninkeeda su-aasha weydiinaa, geeday tirig siinaysaa. waxay leedahay haa waa jeclahay, geedkaasuu saaraa. Marka ayada ma soo sheegayso, mafahanti? Ayada waxa waaye meesha marka su-aasha weydiiyo geedkaa tirig la siinaa. Markii tirig la siiyo su-aasha ninkan weydiiyo jawaabteed waxaa bixinayso geemkaana bixinaya oo soo qoray haa weli waa jeclahay. Dhibaatada geemkaas ee beenlowga ee yani wax lasoo sameeyey le waaye reerka dhan ku dudumay iyo sababta u dudumay. balna kac shaqasadan aan wada dhegeysanay insha Allah. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qisadan idin wada waxay tahay wax walbo qofku markuu u garaad yaryahay maqli jir wax walbo uu arko iska aaminaa. waxyaalaha qaarkood aamin ma galo. qisadan reerkan ku burburay waa game yaroo sidii ilmaha waxay ku dheelaan camal waaye. marka reerkan gabadhan intuu ninkan guursanin ka hor wiil is jeclaayeen. wiilkii markaa is jeclaayeen wiilkii guuray la sugaysay. ninkan marka dambe wuxuu soo gaarsay guurku ma soo wado yiri noo kala wad. maanta dhan isku lagu inay jiri noo kala wad. marka taas guur isoo wadin mac salaam. gabadhan reerkeeda iyadoo joogto ileen wiilaa dadayin jiro waa deysan jiro rabay. ninkii waa deysan jira soo doonto wuxuu yiri inaan guursadaa rabaa. gabadhii weydiiday markaasaa leedahay adi bal ag fadhiiso fursadkii wiilkan kula hadlay. markaasuu wuxuu yiri abaaye bal itijaabi aniga qofku jeclaan ahay qof xun ma ihi adi bal itijaabi. gabadhii intoo ka maray okay tiri. waxaa lasoo hormariyey doonashada maqtuub. marka khatuubnimada markii lasoo hormariyey gabadhii ay ogolaatay 8 bilood soo socdeen. wiilkan wuxuu sameeyey wax walba jeceshahay waa la socdaa ilaa waa qofku jecel wax walba jeceshahay wuu sameeyaa wax walba jeceshahay wuu keena waa yaabanta. marka dambe waxay ogaatay ninkan ninka fiican inaysan helin. way ogolaatay guurkiisii sidii arooska lagu sameeyey. waa la guuriyey gurigooda la geeyey. muddo markay wada noolaayeen alxamdulillaah wuxuu ku arsaaqay wiil u dhashay. haddana alxamdulillaah ilaahay haddana wuxuu ku arsaaqay wiil kale alxamdulillaah laba wiil u dhashay. adiga see muddo u noolaayeen wada joogeen alxamdulillaah. hooyadiisa iyo aabihiisna wiilkan keligiis laba dhaleenba. labadan cunug aaday u faraxsan yihiin oo u dhashay gabadhan. marka maalin maalmaha ka mid ciid aa la jooga. markaas ciidii waxay dhaheen awowey ayeeri ciidda ilmaha banaanka shaarica ha usii diinina wax allaala waxay rabaan annaga u keenino. waxay ku dheeli lahaayeen ilmo dhan annaga u keenino. marka waxay ku dheeli lahaayeen oo dhan dharkoodii ciidda ayeedii awowgii inta soo galeen ay soo wada gadeen ee u keeneen. ilmihii aad ay ugu farxeen alaabta loo keenay iyo dharka loo keenay waxoodii aruursan ilmo waa musan. marka saas u ahayd ayaa 3 beri oo ciid waa ciid 3 beri la qaataan. maalinta labaad maalinta saddexaad ayaa ilmaha waxay ku dheelayeen waxaa ku jiro bahal game oo ilmaha waa ku dheel dadka dhan ku dheelaan laakiin waa game oo qofka run sheego iyo qofka been sheego oo soo kala saara camal. kii hooyada aabad isku cinayeen kaalayna la dheela hooyada aabay xideen anaga wada dheelin kan idanka hay ilmihi waa ogolaadeen. waa soo fadhiistay markii la soo fadhiistay ayaa wuxuu yiri asaga bilaabay su'aalan ku weydiina. su'aasha markaa ku weydiiyo tirigsi haddaan been sheegtid iyo haddaan run sheegtid intay ka soo baxeen. gabadhi waxay tiri waay. markay saas tiri waa qabayay tirig oo siiyey. marka iyadaa tirig siinaysa wuxuu yiri su-aasha ku weydiiya waxay tahay xabiibkaagii yani ninkii hore asla socotay aan jecleed jecelkaagii hore weli ma jeceshahay mase ma jeclid. geeday tirig siinaysaa ma jecli iyadoo dhehaysay taabatay waxaa usoo baxday weli waa jeclahay. ninkii indhihuu taagay waaba xanaaqay dhig waa jeceshahay weli ninkaa jeceshahay waa ogaayna ninka jeceshahay waa ninka waa dawa socota waa ku ogaay ninka welinaada qalbigaa ka bixin ku ogaay. marse wuxuu jiraan ilmo yaraan hortaagan teeda labaad tir aniga
adaa iguursaday walaad ku dhalay sababta aan u jeclaanayo nin islaameed maxay tahay ninkaas qariibaaba kalena adaaba iqabeen maxaa qaldan aryaa isdheh xoogaa wax iskula noqo qalad u haysaan abadan qaylado qaylo ku dar waa ogahay inaa jecleen waa ogahay olba inaa wadad waa ogahay inaa yeelneen kaasoo wuxuu yiri masaanayo xaaladda marowsaaba ay tiri haa isagaa soo boda wuxuu meeshan waa lagu kala tagaa inaa runta sheegtid inaa ninka jeceshahay ya inaan ku kala tagno markaas waxay tiri kala tageeda haday fududahay bal waa war cadee waxaan ku kala tegaynaa runtayga aniga ma jecli ninkaas aniga asaga waa kala tagnay waa isdhaafnay isma guursan calaf ilaa isku keenkeen adaan calaf ilaa isku keenkeen walaad isku dhalnay kula joogaa way dhamaatay waxaane waa la soo sameeyey teeda labaadna adiga bas baroobay su-aalan ku weydiinaya bal been iyo ruum xukuu soo baxday arag abadan wuxuu yidhi marka dambeed laba yir soo gal haye inaan kula guursado iyo inaan ku furo ya inaan kula guursado inaan ku furo waxay tiri eewelba waxaa iska rabtay inaad tiraahid inaan kula guursadaan rabaa ma ku fiicnaanayo tiri marka toos inaad usoo abaartid qaylada qayl lagu dar marka isla kacda calaa ay taxaal waxay yiri aniga inaan ku furo ayaan diyaar u ah sababtoo ah ninka laad qalbiga ku jiro ninkii hore jecleeda duli wadaa anigana ma yani ma xamili karo waxyaalaha qalbiga ku jiro qalbigayga waxay ku jiro ilaahayba waxay qalbigayga ku jiro ma ku sheeg reason aan ugula socoto ninkaas mase aan wax nagala dhexeeyaan maba jiraysa ninkaas reason wax nagala dhexeeya ma jirayso teeda labaad markaan aniga asaga ay kala harnay dib ayuu igu soo noqday anaa diiday oo iri nin meel igeynayo ma tiid adna waxaan kuu doortay markaan ku qatuubtay inaad nin wanaagsan tahay ninkii dhaqan lahaa inaa adi tahay nin adi kaa fiican inaan helin maxaa hadda kaa qaldan ninaan jeclaa geemkaas wuxuu soo sheegay ma anigu haysataa adba gacanta saar adba naag maad jecleedan aan kuleeyahay haa imay haddii waxay ku soo baxay bal been in ruuxuu ku sheegay tahabo ma tahabanayo yiri alaa taxal wuxuu yiri haddaan kula guursanayn madaxaaga ku siinaa yolba guurka meelaha ku tagtaagnaahay tiri ee run haddaa sheegid geedda taabay tiri naag maaragtaa inaa guursato labaad bal haddii kusoo baxayso waa arkaynaa haa iyo maya haddii haa soo baxdo animaa kaa keena mayuu yiri ma jirto waxay tiri marka adaa dan lehay tir nin dan leh meelba u jeedaay nin meel u cadaa tahay anay ibariirini haddii daa iska furays iska kaa soo furfur reerka saasuu ku burburay alaabteeda aruursatay ciyaalkeeda wadatay guriga hooyada aabaheeda hor fadhiisatay asagani sijay ku soo dalaaqay oo dalaaqadeeda loogu daba keenay gabadhii marka game oo caag oo ilmo le loo keenay oo run iyo been wuxuu sheegayaba wuxuu gaalku kusoo xirilo ku xiran qofka dillaah waa jirta ku fura walaa dadka furi rabtuba taada kale shakiyaa ku jiro qofka markuu shaki ku jiro dhibkeeda leedahay guurkan sideeda waa isfahan labada qofood waa in isfahmaan labada qofood uqdad iyo balaayo iyo kala jiraan ee qalbadooda ay ku jirto saasa sameysay saana yeeshay intaa ka dhacday taleefankaaga soo wacay walow waxaan dhihi lahaa gabaray adnaa ku mashquulin taleefanka ninkaaga wiilow adigana gabadhahan ha ku mashquulin halis amino kalsooni waaye guurka lagu sheegay waa kalsooni labada qofood haddaysa isfaham jirin oo kalsooni jirin guurkaas mid naajax ma noqonaayo maba najaxaya waa la ogaa labada qofood waxaa la rabaa inay kalsooni isku lahaadaan waxaa la rabaa inay isfahmaan hadduu fahamka jirin iyo kalsoonida jirin nagu kala yaacay wa hadaa tiraahd meel cidlaan kama seeraa agtaada soo maray yaa ahay naagtaan kusoo wacday yaa waa idna ninkan kula hadlay yaa waa ninka xaggala taagnayd yaa waa ninka inta taagnay yaa waa ninka inta soo istaagay maxaa keenaa shakiyaas maxaa keenaa agabarey adna siraat almustaqiimka jidka toosan ku soco inaan qof la qabaa tahay adna wiilow adigana reerkaaga si sharaf la wanaagna ku dhaqo adoona laalaab iyo looq gelin kama fiicno anigu saas waa waanadeeda intaasaan war kusoo gabagabeynaa qisadeen intaas ku eg tahay waxaa idin leeyahay sheerta iyo like subscribe-ka hanaga iloobina insha allah khayr badan ayaa idin dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu